السلام عليكم صاحبي سو dhawaada ku soo dhawaada macadka barashada culumta iyo tiknoolajiyada ee high school maanta waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo course ku saabsan sidee computerka uu sameeyaa jadwal inta badan waxa dhacdo computer aad maartay ku shaqeynaysay maalintii oo dhan haddana habeenkii oo dhan in maartay ilmaha yar xaafadda ay wax ku fiirsanayaan laga yaabay marka computerku waqtigaas badan oo daaran yahay inuu ka qaado culays ama cilad haddaba waxaan rabaa marka inaan u sameeyo computerka jadwal oo iraado waqtigaas meesha lagu gaaro ama aan wahay ama qof kala hayde hadamo haddaba computerkaaga waxa soo kacinaysaa qaybta searchka waxa ku qoran task marka ku qorti saan ku soo baxda kadib waxa leedahay click marka ayada furtid isla ayada furaysa waxa raadinaysaa meel ay ku qoran tahay create task marka ku qoran tahay raadinaysaa create task markay sidaan kugu soo baxdo ayada ayaad furaysaa okay halka markuu keen waxa ku qoraysaa dami computerka habeenkii okay marka waxa rabaa in computerka habeen dasho waxa leeyahay marka waqtigu waa 12ka wixii loo gaaro dami hadaba waxa leeyahay 12ka wixii loo gaaro dami halkan ku qoran tracks ayaa taga hadii mid hore ku sameysnaa edit hadii kartaa hadii kale new oo mid cusub sameey halka marka waxa ka soo gelinaysaa timekii la daminay waxa leedahay 23 bisha meeshan saacada waxaad ka dhigaysaa 12ka 58 ee ma ka dhigay habeenimo marka one time ya maso daily ya dooranaya aniga days kana waxa dooranaa maalin kasta ay friday daas soo dooranaa kadibna intaan kale experience waxa ma ahan meeshan waxa waaye taariikhdu waxa soo saxay kadibna okay leh waxaan tagaa meesha markaan ay ku qoran tahay action waxa u jeedo computerkan wuxuu damaa 12ka 58 daqiiqo kadibna waxa tagaa halka ay ku qoran tahay action marka meesha ugu muhiimsan waa meeshan ay ku qoran tahay action markii aad soo furtid waxa sameynaysaa new marka dhacday halkan ay wax ku dhufanaysaa browserka ay ku qoran tahay browser marka ku dhufatid waxa soo furaysaa PC kadib waxay raal noqdo browser soo furaysaa browser soo furtid PC ka dooranay kadib waxa dooranay local disk C marka ku dhufid waxa raadinaysaa meel ay ku qoran tahay Windows marka saan u qorto waxa raadinaysaa meel ay ku qoran tahay system 32 bit haduu computerkaagu 64 bit yahay 64 bit raadinay haduu 32 bit yahay 32 bit system 32 bit marka saan u imaatid waad furaysaa waa u jeedaa system 32 bit set 2 bit haduu computerkaagu ahaan maartay 64 bit raadin marka waxa leedahay shutdown.ext arkas qorisa kadibna okay ay leedahay waa soo noqonaysaa okay hadan leedahay meeshaan oo dhan marka okay oo soo dhameynaysaa intaan marka soo sameeyay waxa oo dhan wax ka dhaxbaysana marka waxa qoraysaa task marka soo qortid isla meeshii hore ayaad soo furaysaa waxa u jeedaa meeshii color kala yeelta anjana soo furna halkan waxa raadinaysaa meel ay ku qoran tahay dami computerka ka raadinaysaa waatan u jeedaa dami computerka waxa filayaan si fiican u jeedin dami computerka meesha ay ku qoran tahay marka waxa u jeedaa trace action wax walba inay u dhameystiran yihiin waqtiga computerka dama waxaas dhan waa u jeedaa marka hadaba su'aasha ma waxay tahay sidee iskaga dileedi kara programkan oo iskaga bixi kara right click ayaad leedahay right click marka tiraadid gacantaada midig xaggeeda waxa raadinaysaa meel ay ku qoran tahay delete waa dul tagay kadibna right click aad leedahay waxa raadinaysaa meel ay ku qoran tahay delete hadii aad aan fiirno qaybtaan gacanteena midig meeshan hoose waxaad uga jeedaa inay ku qoran tahay delete hadii aan delete dira programkan hadda meesha uu ka baxaya marka wixii saacadan ka dambeeyana computerkaagu meesha lagu gaaro 12ka habeenimo ama 6 saac ee habeenimo uu isdimi doona waxaan filayaa in casirkan wax badan ka fahantay kana faa'iideyso